بسم الله walaalka yow ilaali qiimaha iyo sharafta gabadha walaashaya si aad u noqoto qof sharafkiisa iyo qiimihiisu u ilaashamaan sababtu ay tahay waa laba shay oo isku xiran waxaad ogaataa mar walba oo aad ilaaliso gabadha walaashaya sharafteeda mar walba oo aad ilaaliso gabadha walaashaya qiimaheeda mar walba oo aad ilaaliso gabadha walaashaya magaceeda waxaad ilaalisay magacaagii waxaad ilaalisay sharaftaadii waxaad ilaalisay qiimahaagii aad bulshada ku dhex lahayd mar walba oo dhaawac gaarsiiso dib u geysatana waxaad ogaataa sharaftaadii iyo qiimahaagii iyo dadnimadaadii intaba inaad dhaawacday oo aadan bulshada dhexdeeda sharafna ku yeelanaynin qiimana ku yeelanaynin aadna noqonayso qof isagu gacantiisa isku toogtay marka biriha ka cabanin dib walba oo kugu yimaada waayo adiga kasbaday adigaana ku sugaystay. Assalaamu calaykum.